Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida iyo Dambiyada Culus ee shanta gobol ee dowladda Puntland ayaa maanta soo gabagabaysay dhageysiga eedeyn loo haysto eedeysanayaal kale ah Maxamed Yacquub Siyaad iyo Cali Axmed Ileey oo ku eedeysan taageeridda kooxda argagixisada Daacish iyagoo ku sugan dalka dibadiisa. Qareenka difaacaya eedeysanayaasha oo lagu magacaabo Axmed Salaad ayaa soo jeeday in aanay ahayn raggaasi in maxkamad ciidan laga soo eedeeyo isla markaana eedeysana Maxamed Siyaad Yacquub uu yahay nin maskaxiyan aan fiyoobayn. halka xiriiryaha ciidanka qalabka sida iyo dambiyada culus Kaashaale Maxamed Xuseen oo cuskaday qodobada ku soo eedeeyay inay yihiin kuwa cad oo ay galeen gaar ahaan Maxamed Siyaad Yacquub. xeer la martan eedeysanayaashaas aan qareenka u ahay ma qabsan karo sababtoo uu soo qabsan karin waxa weeye waa shacab aan hubaysnayn ma aha dhaqaale kuma taageerin awood kuma taageerin kale gaadiid kuma taageerin guri kuma taageerin cunto kuma taageerin waa niman shacab ah oo aan hubaysnayn. waxaa la qabaa maxkamadda ciidanku ma haddayan hubaysnayn ilaa maxkamaddu waxay u xisaaran tahay waxa weeye ciidan iyo ciidan u eke labadaa midna maaha wakiilinteeda ciidanna maaha ciidan wakana maaha garanayo xeerarayuu sababta uu u soo qaatay qodobada xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo aan ahayn kuwo qaranka gaf lagaga gelayo waa qodob inoo kala muuqan meesha. Yacquub Siyaad markaan si gaara u dul istaago waa nin waalan qofka waalan wuxuu leeyahay calaamado lagu garto. qodobka calaamada koowaad oo lagu gartaa waxa weeye malaha qorshayn wax ma qorsheeyo. calaamada labaadna waxa uu sameeyo aqoon uma laha inuu iska daayo ama sameeyo yani doorasho male. markaan wareystay maahi nimankaan maahi waxaa kaloo calaamadahaa shan igu ah afar waxaad ogtihiin inuu isimadiisa caayo weliba garowa dhexdiisa oo barxadda isagoo jooga uu ku caayo oo aan waxba laga soo qaadin. sababtu waxa weeye inuu wax waalan yahay baa la ogyahay waxba lagama soo qaado. uu caaya kuwa sool buu caayaa kuwaan garowa joogu caayaa yani waa sana freer waa qof qalinka baxa ma aha qof caadiya ma. dalka uu joogaa waxaa ka jira waxa la yidhaha xorriyadda qowl qofku wuxuu rabo iska sheegi karaa. qaatay jinsiyadda dalka wuxuu ku dhaqmaa qaanuunka dalka Soomaali ha ahaado laakiin wuxuu leeyahay jinsiyad kale oo uu qaatay oo u fasaxaysaba inuu wuxuu rababa sameeyaba. wuxuu ku kooban yahay afartaa qodob oo xagga waalida maskaxda aad ku dareemi kartaan oo ama ay tahayba iyo qaanuunka lagu eedeeyay oo aan ahayn mid ku habboon in laguba eedeeyaba. waxaa jira ma aha qof caadiya ma. qareenku wuxuu ka hadlay qodobada lagu eedeeyay nimankaas mana gudoomiye annaga waxaan qabnaa qodobada lagu eedeeyay inaanu gar u lahayn inaan ku eedeyno. sababta waxa weeye tusaale ahaan qodobka 208 oo ah faafin xog been xilli colaadeed ninkaasi wuxuu faafiyay xogo been ah iyadoo dagaal lagu jiro. tan qodobka xeerka argixisada la dagaalanka argixisada ee xeer Hilmartin sababtan ugu weyn waxa weeye isaga wuxuu la bareeray inuu nimankaas taageero afhayeen u noqdo afkooda ku hadlo waxaana iyagu sheegin uu sheego inay soo qaataan oo iyagu beejijkooda soo dhigaan iyagoo xiganaya oo leh dawladdii intaas ka dhintay sida uu sheegay Hebel Yacquub Bileeyihiin. sida daraadeed qofku cidiisan isogeyn ama aysan warkiisa jeclaysan beejijkooda ma soo dhigeen. Yacquub cid kasta oo Facebook ka taageerta Daacish iyo Telegramka waxay soo qaataan fiidiyoodiisa iyagoo xiganaya waxa uu sheegay oo leh fiiriya tirada ka dhimatay nimankii iska soo horjeedin. marka taasi waxay cadeynaysaa in yani xeerkaasi qaban karo. sababta waxa weeye qofkii maskax ku taageera iyo kii maal ku taageera iyo kii farsamo ku taageera iyo kii hadal ku taageera waa isku mid.
iyo kii xoog ku taageero dagaalka uu kala qayb galaa marka qodobka labaad farqada koowaad waa ka mid ahaansho farqada labaadna waa taageerid isagaana warkiisa cadaystay oo toos u taageeray af iyo adinba ku taageeray taasuna waa taa madaxweynaha gudoomiye xarunta qowl qof inaad wax ka sheegto xorriyada qowl ma aha adduunka sharciga meel ku ogol yahay ma jiro inaad wax been ah sheegtid qofku anigu maanta waxaan sameeyay hadii la sheego cidna laguma eedeyn karo laakiin wax been ah marka la sheego waliba lagama hadlo amniyada wixii amniga qaranka quseeya iyo wixii ciidamada quseeya qadeer waxa dagaal ka socda meel kasta adduunka cid aan afayeenka hawlgalka ahayn ama cid aan loo xilsaarin kama hadasho hatta warbaahinta caadiga kama hadasho iska daa qof shakhsiga marka xorriyada qowlka uu sheegay qareenku xorriyada qowlka ka qaldanaa xorriyada qowlka waxa weeye xaqiiqda jirto la sheego way xorriyada qowlka laakiin been in la sheego ma aha buunbuunin argagixiso in la sheego ma aha kamana mid aha xorriyada qowlka shuruucda waddanka adduunka dhan saas ku waafaqsan qofku waxaanu jirin hadduu sheegana isaga cadeynteeda laga rabaa yacquub siyaad iyo ileeye waxaan ka rabnaa waxa ay qoreen oo beenta ah inay cadeeyaan su'aal yacquub wuxuu sheegay lambaro reer kasta uu leeyahay reer hebel inta ka dhintay ciidan hebel inta ka dhintay isagoo ciidankii dawladda beelbeel u kala qaybiyay taa marka laga yimaado reer walba lambarku ku sheegay ha keeno magacyadooda annaga oranayna ninka laga qalday hadduu keeno reer walba lambarka uu sheegay magacyadooda hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baa ka dhintay annaga oranayna waa laga qalday ninkaas laakiin waxaan cadeynaynaa inay tahay been uu ku gacan siinayo argagixisada qareenka difaacaya eedeysanayaasha iyo xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ayaa iyagu soo gabagabeeyay isla markaana codsaday waxaa noo cadaatay in dambi galay kuwa galena ay yihiin labada eedeysane ee kala ah maxamed yacquub siyaad iyo cali axmed cali ileeye kuwaasoo kala jooga Jarmalka iyo Sweden sida daraadeed mana gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh si loo ilaaliyo xorriyatul qowlka lama diidana laakiin waxa la diidan yahay waxa weeye beenta ay sheegayaan waxaan maxkamadda sharafta leh weydiisanaynaa in lagu xukumo min 10 sano oo xarig iyagoo maqana ah sidoo kale xukunkaas noqol ka mid ah ay noo ogolaato maxkamadda inaan Ingiriis u bedelo una diro wadamada ay joogaan haddii maxkamaddu naga ogolaato maxkamadda sharafta leh waxaan soo jeedinayaa in nimankaas haddii aanay maxkamaddu ka laabanayn ikhtisaaska oo aan loo wareejinin maxkamadda shacabka maadaama ay dad shacaba oo aan hubaysnayn oo aan sababihii maxkamaddu ku geliyay dambiyada ay meesha online oo ahaa ciidan iyo ciidamo eke ee ay yihiin dad hadlay hadalkoodana loo qaatay been uu yahay in nin beesheedu waa beelow waxaa u dheer waayey maxkamadda sharafta waxaan codsanayaa in maxkamaddu eedda xafiiska xeerariyada ka soo qaado waxba kama jiraan ugu dambeyntiina gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee shanta gobol gaashaanle dhexe Cabdirasaaq Jaamac ayaa ku dhawaaqay go'aanka kama dambaysta isaga oo markaasi xukun sanado kala duwan ah ku riday labada eedeysane maanta taariikhdu tahay 28kii bishii koowaad 2025 maxkamadda ciidamada qalabka sida shanta gobol waxay soo gabagabaysay kiis ciidamada ay ku eedeysan yihiin maxamed yacquub siyaad cali axmed cali ili eedeysanayaashaas markay dhageysatay maxkamaddu doodda xeeraalinta markay dhageysatay difaaca qareenka markay akhrisatay dhammaan galdacwadeedka galka ku jira waxay mid walba ku xukuntay maxamed yacquub siyaad 10 sano oo xariga isagoo maqana ah cali axmed cali ili maxkamadda ciidamada qalabka sida shanta gobol waxay ku xukuntay 5 sannadood xariga waxaana u cuskatay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed 208 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxa ka furan bil rafcaan ah أحمد محمد شام تلفزيون راديو دولة بنتلان بوصاصو